markii ay kubaddu tahay in adiga aad dheelaysid oo kale oo meesha aad ka soo jeedid aad la dheelaysid dee goorta shaqo uunba adiga meesha kuu taalla taageernimo maahan anigana waajibaadkayga gudanaya baa leeyahay taageerayaasheeda ninna dee shaqadiisa maxay ahayday laguma naco magacaygu horta mar koowaad waa maxamed maxamuud axmed kuna magac dheer saqraawi run ahaantii anigu waxaa ku dhashay goboleedka puntland waxaana ku soo barbaaray magaalada boosaaso kubaddeeda cagtana iyadan ilaa iyo maxay ahayday yaraanteeda ilaa iyo haddeer heerkan aan joogo iyadaan ku soo dheelay booskana haddeer joogana waxaan matelayaa xulka galmudug dee meel la yiri yaa tahay niyow adiga halkaasa u dhalatay maahayn waa meel micnihii kubaddayda la arkay oo kadibna micnihii koobka degmooyinka markaa dheelayay macalin caftaax aad iyo aad u halka ugu salaamayaa taatiko baa kubaddayda run ahaantii aad iyo aad isagoo aan aqoon buu arkay dee dadkana run ahaantii micnihii markii meel lagu geenayo micnihii waa lagu fiirinaya waxaa tahay iyo micnihii qaabkaaga kubaddayda markii uu arkay degmooyinku ii qaatay degmooyinkaa dheelay sideed dhammaadkii baa ku soo harnay degmada hodan saasay tahayna dee macalin axmed tahal uu daawanayay cayaarihii degmooyinka saasaana ku soo galay xulka galmudug inaan matelo aan ciyaaryahan sarqaawi wuxuu ka tirsanaay ciyaartoydii sanadkan ka qaybgelayay tartanka degmooyinka gobolka banaadir wuxuu ka mid ahay xirfadlayaasha degmada hodan u ciyaarayay sidoo kale waxaa meesha garab igu siiyey macalinkeyga ama macalinka aniga garabkeyga taagan macalin cabdi fataax oo ahay macalinkii leelinayay xulka degmada hodan sidoo kaleeto ahna macalin haddeertaan ka tirsan macalimiinta galmudug alxamdulilah asaga ayaan tala wadaag loo ahay waana laba maalin ka mid ayaan soo fiirsaday waxaana qarcinay xirfadiisa maanan u fiirin degaan ahaan laakiin wuxuu ahay ciyaaryahan aaminsan inuu wax badan samayn karo sidii aan ka filaynay si ka fiican noo noqday arrimaha baraha bulshada haddaan sheegana runtii annaka haddaana soomaali boqolkii iyo boqol waxaan aad u bunbuuninaa waxyaalaha liidka ku ah horumarinta laakiin alxamdulilah dad fiican way jiraan oo ciyaaryahankaas ammaan iyo wax badan u qabtay laakiin maanta ma aan kubadda cagta waa qabiil waa isdhexgal bulsho qofka hadduu puntland degan yahay hadduu degan yahay galmudug hadduu degan yahay hirshabelle hadduu degan yahay koonfur galbeed iyo hadduu degan yahay jubbaland waa isla balayer waxaana waa kubadda cag waxaa la dhiilaya waa 90 daqiiqo waxaana calaf u yeelanay inaan helnay xiddiga ugu muhiimsanaay tartankan oo ah sarqaawi mar labaadna waxaan leeyahay hambalay wiilkeyga wallaahi horta run ahaantii waa jiraan dad micnihii social media la wareegaya saqraawi waa yaryahay baa la yidhi maxay ahayday waa laga soo tegey aniga run ahaantii horta wax puntland na dhex mara oo wadahadala ma jirto sababtoo aniga dee markaa boosaas joogana kubaddayda waa arki jiray cayaaro professional waa dhalay ee koob ka mid yihiin oo kale koob gaalkacay laga furay koob qardho laga furay oo kale dee dadka xiriirkaana badanaa way daawanayeen oo puntland u qaabilsan isma lahayn micnihii dee run ahaantii adiga ahaan waa lagaa tegayaa oo markasta hamigeyga waxaa ku jiray sanadka xulka puntland waa matalaysaa laakiinse ma ay dhicin oo maxay ahayday dee nasiib uma aana yeelan inaan puntland matalo saasay tahayna waxaa nasiib u yeeshay inaan galmudug matalo aad baan ugu faraxsanahay galmudug taa haddeer joogo insha allah wallahi horta run ahaantii aniga kabtan ma ahayn waxa ahaa nin balaayar oo balaayariinta ka mida run ahaantii mar haddaa u dhaceyno meesha aan aniga aan ka soo jeeday kabtanada kabtan sahal iyo kabtan liibaan ayaa igu sharfay inaan maxay ahayd aan xirto kabtanka calaamadda si aan tiimkeyga aan guul ula gaaro aan guul weyn ugu hogaamiyo insha allah qof walba oo ila soo hadlo wuxuu leeyahay hambalyo niyo aad ba ugu faraxsannahay micnihii horumarkaa gaartay dadkii kaa tegay oo kale oo aad ka hor timi oo aad isku bartay lugtaada run ahaantii dee anigana wax niyaddeeda ku jira ma ahayn run ahaantii horta puntland isbar laakiinse waxay hamigeyga koowaad uu ahaa inaan maamul goboleedkayga kow horta aan guul la gaaro finaalna aan la tago koobkana aan la qaado aad iyo aad aan ugu faraxsana haddeer finaal baa joognaa insha allah waxaan rajaynaynaa inaan koobka qaadno markii ay kubaddu tahay in adiga aad dheelaysid oo kale oo meesha aad ka soo jeedid aad la dheelaysid dee goorta shaqo uunba adiga meesha kuu taalla taageernimo maahan anigana waajibaadkayga gudanaya baa leeyahay taageerayaasheeda ninna dee shaqadiisa maxay ahayday
laguma naco waxaa leeyahay macni ani waajibaad isaarnaabaa gudanayay maadaama idinkana aad rabteen inaad badisaan anigana waxa u socda hadafkaygu wuxuu ahaa inaan guulaysto marka labada hadaf uunbaa isdiidanaa marka raalli ahaadaan wallaahi horta beenta maahan oo shalay inta ciyaar daawana ciyaarta ugu taageeraha badneyd bay ahayd ama aan dheelayay saasay tahay macnihi annagu isma raacraacsiin oo mar walba waxaan ka soo qaadaynay macni kuwa naga soo horjeeda iyo kuwa nala jira in annaga uun na taageerayaan oo noo sacabinayaan sawaxanka garoonkana isma raacraacin aanu keliya waxaan xoogga saarnay in sida aan guul ku gaari lahayn oo keliya wallaahi horta mustaqbalkayga waxaa jeclahay horta mar uun inaa calaamadda aan xirto fanaanadda qaranka Soomaaliya oo aan qaranka matalo insha Allah rajadeeda ugu weyn waa taas